waxaa caawa Hotel Race ee magaalada Buuhoodle loogu qabtay xulka kubadda cagta ee gobolka Cayn munaasabad iyo casho sharaf lagu dhiirigelinayay dhalinyaradii wacdaraha ka dhigay koobka Puntland ee matalaya gobolka. Munaasabadan ay soo qaban qaabiyeen dhalinyaradii soo dhaweynta xulka gobolka Cayn, waxaana munaasabadaas ka soo qayb galay suduwaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee dhalinyarada ciyaaraha dawladda Puntland iyo gudoomiyaha dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo macalinka xulka kubadda cagta ee gobolka Cayn iyo maayirka degmada Buuhoodle. waxaana halkaasi shahada sharaf lagu gudoonsiyay dadkii ka qayb qaatay inuu xulku halkaas soo gaadho oo aynu ku soo dhaweyno xulkeennii bilayradeennii maamulkeennii macallimiintii inoo matalayay magaceena matalayay sida quruxda badan iyo kubadda quruxda badan iyo magaca quruxda badan inooga soo jiiday Garowe inaynu ku maamusno ayaynu ugu talagalnay xafladan. waxaanu leenahay runtii marar fara badan ayaad naga farxiseen oo annagoo faraxsan aanu seexanay haddii sidii aanu idinku hambalyeynay markaad badiseen haddii la idinka badiyayna sidii un baan idinku hambalyeynayna oo aan idin soo dhaweynaynaa oo aanu markasta idin garab taagana. xafladan waxaan idinku talagalnay inaanu idin tusno haddii la idinka badiyo iyo haddaad badisaanba in markasta aad meel noo taagantihiin uusan marnaba hoos u dhacayn meeshaad noo taagantihiin iyo mansabka aad naga mudantihiin. markasta waxaan leeyahay markii horeba saan idin taageersanayn ayaanu haddana idin taageersannahay idin soo dhaweynaynaa kubaddii quruxda badnayd iyo magacaad noo soo jiideenna waanu ku qanacsannahay sidaad nooga farxiseenna inaan idinka farxinno oo idin maamusno oo intan iyo inka badanba idin qabanno ayaanu xafladan u qabannay oo galabta idin soo dhaweynay. dhalinyarada nasiibka u yeelatay inay ku ciyaarto magaca iyo garanka gobolka Cayn meesha fiican gaarsiiyay dadaalay halgamay u dagaalamay in ay koobka keenaan xabada stadium laakiin nasiibku ka hiiliyay waxaan soo dhawaada waxaan u mahad celinayaa hablaha dhalinyarada ee fikirkani ka soo maaxday ee noola yimid ee nagu garab galay ee ilaa caawa nala jooga iyagana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. aqoon-yahanka dhakhaatiirta siyaasiyiinta guddoonka degmada iyagana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin sida aad xulka u maamusteen ugana soo qayb gasheen xalfadan milgaheeda iyo miisaankeedu sarreeyo. qalbiyadayadaad ku weynaan doontaan waxa weeye quluubteeda marnaba kama bixi doontaan insha allahu tacaala. sidaa intaa markaan ka soo gudbo macallimiinta iyo guddoonka isboortiga ee gobolka Cayn baan u mahad celinayaa. runtii khibrad xirfad dadaal waxa weeye hawlkarnimo raganimo ayay muujiyeen. waxa weeye nasiibka ina ka hiiliyay ee waxa weeye khibrad iyo kubad toona leena kagama badin. afar baa soo ciyaartan kooxda koobka qaadana shan bay ciyaaraysaa. taa macnaheedu waxa weeye cidii ugu horeysay ee garoonka Miraha Waare ka soo rawaxda maydan ahayn cidii ugu dambeysana maydan ahayn. waxa weeye waynu noqon doonaa waliba waxaan ku faanayaa inaad idinku dhalinyaro u tihiin. maanta horta waxa farxadii ah bulshada intan leeg oo daayirtii gobolka Cayn matalaysay ee magaca gobolka Cayn ku ciyaaraysay ayadoo laga hor yimi 10 kilomitir meel u jirtay magaalada gobolka Cayn laga hor yimi lagu soo dhaweeyay run ahaantii xulkaasi maanta aad buu farxay waxaana mutaystay khiyaarta halkan fadhida ay ka mid yihiin habluhu ay ka mid yihiin aqoon-yahanku ayaa mutaystay hawshaas sida nooga farxiseen Allah inaga farxiyo insha Allah bismillaahi kariim dhamaantiinba. dadaalka nala jira waa garan karnaa haddaan nahay xulkii gobolka Cayn shaqadeedii waa gudanay insha Allah bismillaahi kariim kumaanu qanacsanayn inaanu koobka ka hadhno kii waxaan ku qanacsanayn inaanu qaadno bas laakiin qadar rabbi baa halkaan dhigtay iyadoo goboladii aanu islahayn awood bay leeyihiin boqolkiiba boqol aan ka ciyaar fiicnayn ee caasimadda Nugaal ama Garowana run ahaantii meel kastoo aan maray waxaa ka socotay inamada Cayn ama xulka Cayn sida ay u ciyaarayaan aan u ciyaarno. bari baa lahaa mudug baa lahayd haylaan baa lahayd sanaag baa lahayd run ahaantii markii aan dhalinyarada xulka gobolka Cayn aan halka ka kacaynay oo dhalinyarada halka fadhido daayirtaan ka kacaynay isma lahayn kubaddaas ku jirta
laakiin galabkii ugu horreeyay markii aan daawaday waa ku qancay 14 jirada waa ku qancay aan ka xiyaalka ka gixiyay mid waa garoonka mid waa gobolka midna waa sportiga awal hore hadaynu ogeyn oo la lahaa bisha tobnaad baa la dhigayaa koobkii ee bisha 9aad aynu abaabilo ama la oran jiray bisha 8aad baa la dhigayaa ee bisha 7aad aynu abaabilo horta sporti dambe oo la kala dirayaa oo kala tagayaa ma jiro ogaada saas uu dhisnaanaya traininkiisu wadanaya hawlihiisu wadanaya qorshayaashiisu wadanaya kaliya wuxuu baahan yahay in la taabantabiyo waxa lagu taabantaabinaya anigu waan ognahay qarash ma aha waan ognahay halkaynu joogno waynu ognahay laakiin waa agab wadoogeedana markay halkan ma taqaanaa waxyaalo badan aan ka hadal ka horaan kaga hadlin baa jira markaynu baxaynay waxaan isku daynay in badan baan isku daynay inaan isdhexgal sameeyno horta tan ka hadlay waxa weeye garoon baa laga hadlaa dhowr qof baa ka hadlay beenyayna isu sheegi garoonkeena inaga waxayna agraday waa maamulkeena weeye dadka Puntland ku magacaaban ee ka mushahar qaata waxay noqdeen dad kaligood shaqaysta laakiin aan bulshada u shaqayn xaqiiqada isu sheegno kuwaas oo wax dhaqaajay maana waxa ma dhaqaajin karno wala $1 ba wax noo tarayn wala abaabil ba wax noo tarayn wala Facebook ba wax noo tarayn wala balbushan wax noo tarayn yani xaqiiqada isu sheegno kuwaas markay wax dhaqaajiyeen baan wax dhaqaajin karnaa anagu gobol waliba dawladda hoos u leeyay gobol waliba dhaqaalaha soo gala markay dadka kuwa magacaaban ay wax qabtaan baan anaguna wax qaban karnaa way anagu de bulshadii aan ayagina maamul bayna wala matalaya marka ayna xaqiiqada isu sheegno dadka kuwa halkan ka hadlayaan sheegaya hadalkoodu ha pointiyeen baan oonaya cid kasta halkan ka hadashay way hadalkoodu point u yeelaan horta way ku mahadsanyihiin kulli waa wax waajib lagu lahaa oo de gobolka mudnaa waana waajibaad ay garteen waxaana si gaar ah ugu mahadcelinayaa hablaha oo waxa la yiraahdo horseeday gobolka inay gobolkoodii garab taagan yihiin de waxa la yiraahdo gobolada hore markay bixi jireen habeenkii dhumushu soo gali jireen waxa la wax soo dhaweyn ma arki jirin guryahooda bay xilli dambe ma jireen laakiin hadda gobolada waxa loo sameeyay gobolka soo dhaweyn deemka waxa laga bilaabo qof kasta wuxuu jeclaysanaya in qaranka lagu daraalmaanayaa kubadii waxiisa yeelatay mar hadii riigil iska hor imaanayo kulay waxaan aad ugu mahadcelinayaa qabanqaabiyaasha soo qabanqaabiya barnaamijkan quruxda badan in dhalinyarada gobolka la soo dhaweeyo la dhiirigeliyo kulay waxa la ilaa isku daymaan sameeynay waanu jeclaynaanu badino waanu koobka buuhood la keeno laakiin qadarkan dhaafi kari weynay iyo qoraalka Ilaahay insha Allah laakiin markaan isku dayi doonaa marar kale inaan koobka in soo qaadno xafladan waxay daaran tahay waxa la yaqaan soo dhaweynta xulka gobolka mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba aad baan soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay guul baad keenteen waxa la yaqaan waxaad gaadheen heer aysan cid hore gaadhin waxaad jibisaan waxa la yaqaan gidaar ama darbi inagu teesanaa insha Allah sanadka dambe waxaan rajeynayaa inoo koobku wadna in waxa la yaqaan maanta riiga la iska hor yimaado waxa la yaqaan ari cadeeye iyo la socod egtay la iska hor yimaado la soo galbiyo insha Allah arrimo badan baa halkan lagaga hadlay oo ay ugu horeyso arinta maanta isu keentay ee ah natiijada dhalinyaradu ay ka gaadhay waxa loo yaqaan koobkii gobolada Puntland ee ay qabatay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha oo hogaaminaya wasiirka gobolka jaamac oo isaguna runtii mudan mataqaanaayay raaligelin iyo ammaan aan horay aysan u lahayn wasiiradii ka horeeyay runtiina gaarsiiyay wasaaradda in ka badan intii ragii ka horeeyay aysan gaarsiin sidoo kale waxaan si gaara ula hadlayaa isboortiga xulka gobolka Cayn macalinkiina waa sheegay rag kala tagaya ma tihidin rag trainingkooda iyo tababarkooda si qaadan doonaatiin ka dhalinyaro ahaan runtii isku kalsoon anagu waxaanu goobjoog u ahayn xulalkii ka horeeyay in ka badan inta aan kuwan la joognay lamaanan joogi jirin dhalinyaro ahaan baanu la joogi jirnay laakiin runtii waxaan ka baranay rag dhalinyaro oo isku calool furan waxa weeye xirfadooda ku kalsoon runtiina guusha waxyaabaha keena waxa kamid ah in sportigu isku kalsoon yahay 500 baan waxa weeye kaga qayb qaadanaya waxaana ka mahadcelinayaa runtii si khaas ugu mahadcelinayaa aan ku soo gabagabeynayaana waxa loo yaqaan gudoomiyaha sportiga
siciid guray warbaahinta daljir buuhoodle maalgelinta bangiga salaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shariicada islaamka waxa uuna bangigu ku maalgelinayaa wax kasta oo geli kara iib xalaal ah sida guryaha gawaarida badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid ah alaabta uu bangigu ku maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib ah ama bilaa ah